فيلم كان لما قاع بحي اسمه قبطه oo jilidiisa ay ka qayb qaateen abwaano Soomaaliyeed fanaaniin caan ah iyo jilayaal dhamaantood ka tirsanaa hobaladii qaranka Soomaaliya dhalinyaro iyo qurba joog Soomaaliyeed ayaa lagu soo bandhigay magaalada Nairobi ee dalka Kenya filimkan ayaa ka hadlaya burburka qoyska qoorsiga iyo sidoo kale tahriibka dhibaatooyinka ay kala kulmaan bulshada Soomaaliyeed haddaba aanu wada daawano qayb kamida filimkaasi waana si fiican u lahadlaa وانا كحشونيا وادي كذا stop now because you are bullshit لكن ما ده هي قررتي ذا وين الدنيا انت هو يلعن قلناين هذا وحنا إله وناس هذا سبب توحي تهي نعلها أو تاقيا بركة إقبان ده كالو بدلا لوجش لو بدلا هاي سريرها بل لو بدلا ما هي كل عدا عنيقة gabadhayda hodan iyo hanad sariirtii aan ku dhalay ilaa inta la saacadan waxa weeye aniga taasiciibu tahay yaani waxa weeye wax walba wala laga bedelaya wax walba xaajo wala laga bedelaya wax dhibaatay ma jiro dahabku waa bedeli alaabtu waa bedeli baabuurku waa bedeli wax walba waa bedeli adigu waa bedel baata فهذا عرفت القتليون كله كراسة اليوم وأنت يمو يبسميه الرابع يا هاي والله عقي سافر يستوى ماله problem كهستي دك أنا إفهم دتكم إفهم معايا والدكم إفهم معايا معلمكم ودي وي filimkan oo ay ka qayb galeen dadweyne aad u fara badan ahaana markii ugu horeysay ee noociisa lagu soo bandhiga magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaanu wax ka weydiinay dhalintii ka qayb gashay daawashada filimkaasi fariinta uu gudbinayay Rahmaan Rahiim filimka horta waxaan ka faa'iidnay dhibaatooyinka Soomaaliya ka jira oo u badan dhalinyarada dhibka haysta xagga guurka oo marka laba qof isjecel ay macna israbaan oo qofkii loo diido iyo dhalinyaradii oo badda ku dhamaanaysa iyo waxaan qabiilka siyaasadda dhibaatooyinkaas oo dhan buu filimku soo bandhigayaa marka waxaas oo dhan baa laga faa'iiday dad badan inay ka faa'iideysan doonaan baa filaya dhibaatooyinka ummadda Soomaaliya waxa kamid ah laba qabiil oo dadka qabiilada laga sax oo dad Soomaali ah oo Islaam ah in la yiraahdo wiiladu gabar cid ka soo doonto in la fiiriyo xagga nasabka in la yiraahdo reer hebel ma tahay waxaasna waxa dhibaatooyinka Soomaaliya in kaartan haysto cuqubadana haysto oo hadda wadankan u helay inuu mid labaad ah filimka faa'iido waxa waaye dadkan bulshada Soomaalida waagi hore Soomaaliya markii dawladdu jirtay waxa la isku cayngeliyay riwaayado kadib markii dawladdu burburtay waxa la waayay riwaayado iyo filmaan wax dhigo dadkan bulshada waxay wax ku waacay qaadanayaan waxa kamid ah riwaayadaha had sida aan riwaayada filmka ka mid tahay waxa kamid ah taariikhda dadka Soomaalida 24 saac oo ku dhimanayaan hadii loo sheego la warka jooga waxay leeyihiin annaga wax fiican naga cilmimaysan waa aragtaan hadii dad aad doonto kortid dhinaca hadii u cirto waa laga tuuraya taas waa dhibaatooyinka Soomaaliya haysta Abdisatar Daahir Sabriyo oo kamid ah wariyaasha telefishinka caalamiga Universal xafiiska magaalada Nairobi ayaa kamid ahaa dadkii filimkan daawashadiisa ka qayb galay waxaan kala sheekaystay dhambaalka filimkani uu xambaarsanaa labada qodobna waa laba qodob oo dilatay Soomaalida waliba mudooyinka ugu dambeeyay marka uu ku badanayay labada qodob oo kala ah tahriibka iyo qodobka kale oo la xiriira dhaqanka Soomaalida qodob ku batay waayihii dambe xataa moodino si cirib go'ay oo ku saabsan isirka dadka oo leeyahay reer isma guursano gabadha wiilkeena ma geeso iyo wiilka gabadheena ma geeyo oo ah arin Soomaalida aad ugu falxameed marka waxaad moodaa filimka inuu ku amaanaaba labadaas qodob gaar ahaan qodobkan burburka qoyska ka hadlaya laakiin aniga waxa ila macaan runtii markii inta laga hadlayo qodobka ku saabsan oo filimku aad ugu turjumayay oo dadkii daawanayna damiirkooda runtii wax badan ka bedeshay waanu waan joogay oo ku saabsan yani qodobkan gabdhaha iyo wiilasha isjecel diin ahaan iyadoo ay ka dhaxayso dhaqan iyo dad ahaan iyo dalba wadaaga misana gabadha sidoo leeyahay wallahi gabadha way qurxoon tahay wiilka waa qurxoon laakiin maxay ku taala waa reehibile mana waa boonti Soomaaliyeed dishay iyo qodobkan kale tahriib ku saabsan way ugu dambeeyay Soomaaliyeed tahriibaya laakiin wali ay yareed in aflaan ka hadlaysa tahriibka dhibaatadiisa la soo bandhigo iyo qodobka kale ka raajisay laakiin ma isleedahay waa lagu xakameyn karaa waxyaabaha soo idin
والله أبوانيت أما فنانين ترتا طبعا وكيل كما أهان إن ضدك يجوا سقس أي واحد كما يعني لكن إن أردت أي صبان لجان ويردا وروحا وحنا ويحيين أنت نوع وبرهمش معان أو سمالده يعني هقول هذا وهلا سمايه إن سيد وكله أيوب إن أي صبان لجان يعني وحي بشروا أي كده حركة ينام مهمته وأنا طلابه أي لصباهين ولبا أبوان كسمي أبوانين تكلوا عن سماه بنتبه عكس السرادية اللي فكرة عن كل كفتة من مسلاد هاي وحبات كجبة دليسة لخمك وجو إيمان لها أو فيلم كان وعيد لك وجو نقد أيوة أنت ضدك داونا يدل بيرت وتاعي كل معه خوف كسبوا مثلا هذا معنا إنه يحيين مثلا وحيرد إلا هلا فرصة موجودة وعيقلن إلى أي حد تعلق haddaba Faysal Cabdisamad Faysal Karate waa maskaxdii ka dambeysay filimkan waxaanu ka mid yahay jaaliyada Soomaaliyeed ee ku nool dalka Denmark waxaan wax ka weydiiyay waxyaabaha ku dhaliyay filimkan iyo waxa bulshadu ay ka faa'iidayaan horta filimkan waxa sababta loo sameeyay waa tusaale macnaha inay dadka ku wacyi qaataan dhibaatada Soomaaliya ka jirta iyo dhibaatada problemka haysta Soomaalida qaasatan dadka macnaha ku nool macnaha wadanka gudihiisa iyo dadka soo barakaceen gaar ahaan Afrika faa'iidada ay ka faa'iidayaan waxay tahay waa in ay ku tusaale qaataan dadkan ku dhamaanaya macnaha badda tahriibka dadkan qabiilka isku dilayaan dadkan macnaha family problemka macnaha ku kala tagayaan burburka dhaqan dhaqaale ee soo wajahay bulshada Soomaaliyeed ayaa dadka doonaya inay u istaagaan si ay wax uga qabtaan ninba meel ka wajahaya tanina waa qayb kamida isku dayadaasi Xamdi Maxamed Kadiye Universal TV Nairobi